السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام الدمان أغيارت الشرفت له صاحبة قالية رير دبيب رير ددال سيقود يا سيجار سودو هذا welcome. هيه ما شاء الله ما شاء الله رميها نيدو دوجنت يدي رجلنته دبيب يا ددال إلهي إذن كيسوا إنه إنت welcome عيد الله غير بدني فرحة الله كيا الأمور تسلان سر برنامجكني ardada si guud inta ula socotay youtube-ka fadhidana kusoo dhawaada channelkeena dabiib iyo dadaal programka inta la socoto ama la socon doontana soo dhawaada welcome waxaa iga fahantaan allah idiin barakeeyo aamiin soo dhawaada afeef waraaliira ama adkaysi dambe aniga ma dhihin soomaaliya dhahday arrimaha aan ka hadla afeefta aada u badan waayo hadday kuu hagaagto horaa waxaa loo yiri shar u toog haay khayr waxba kuma dhibee dacmiins waxa aan ka hadlaya hadday kuu hagaagaan waaba sidaan rabnay waa sidii la rabay si khayr la allah ka yeela amuuraha hadday hagaagi waayaan aamin yaa rabbi hadday hagaagi waayaana dhibka markaasuu jiraa hadday wax hagaagi waayaan markaas waa marka afka dhuudhuubeeno complaininka aan wadno ama eedda aan wadno laakiin haddii laga fikiro oo lasii faahfaahiyo oo lasii fahmo oo wixii laga tanasulo ama kusii habboontahay in laga tanasulo waxay ku habboon tahay in loo jaanqaadana loo jaanqaado way israacaysaa sheekada sooma marka meesha dhiirigelinta waaye intaa iska dhegaysanaysaan cilmiga ha lagu dhigee cindigaaga la kaashaa la yiri ilaahay idankiisa cindiga la kaashada fadlan waxaa ogaataan hadduu ilaahay wax idiin hagaajinayo adoon wax juhdiyaba u marin ayay wax ku hagaagayaan ilaahay idankiisa ama buurnoow ama dhuubnoow ama cilad kala caafimaad daraha jirto xataa dad naafo ah oo caadi naafo u ah ayaa ilaahay wax siiyaa marka mar walba ku talagal ilaahay hadduu wax ku siinayo cid lagalama tashanaayo cayn kastay arrinkaagu yahayne waa kuu hagaagaysaa haddiise itixaan yimaado waa waxaan ka hadlaynayaa waa hadduu itixaan yimaado itixaankaas ilaahay inuu kuu fududeeyo ilaahay weydiiso micnaha itixaanka inaa fahantidna ilaahay weydiista oo ilaahay aan weydiisana dhammaanteen soo dhawaada welcome waxaan rabaa inaan la hadlo gabdhaha la dhahay arrinkaagu ma shaqeynayo ilaa iyo egg donation yaase egg donation qaadan karo waa maxayse egg donation waxaa laga wadaa ugxaanta sadaqada ah ugxaanta gabar kale laga soo qaaday actually wax sadaqa la yiraahdo ma jirtee waa lacag gabar kale lagaaga soo gadaa gabdhuhu way gataan raggu dadka waxaan ka hadlayaa aan islaamka ahayn oo diimanka kala wato oo de ilaahay iyo ka baqidiisa iyo wixii ilaahay noo qadarayba daba marayo wax kale de iskaga dhaqmaayo dhalinyarada way iska gataan dadka baahida u geysa way iska gataan iyo dadka maaragtay dadka dhaqaalaha haysta laakiin inay ilmo dhalaan aanay rabin ayagu responsibilityga ilmaha aanay rabin laakiin inay taran adduunkan kusoo kordhiyaan rabaan waxaa jirto sometimes dad la baarayo in la yiraahdo ma ku sameyn karnaa study barasho ma ku sameyn karnaa cararayaashaada ama isbaamahaaga oo haa dhahay inay ka helaan wax badan oo shaqeynayo kabacdina ay u wacaan gabar listiga ugu jirtay donation ay dhahaan haya ninkaasoo noocaasaan haynaaye ma rabtaa kabacdina ay haa tiraado ugxaanteeda lagu daro saas ilmo ku hesho say wax u farsameeyaan kule ayagaa garanayo laakiin egg donation waxaa laga wadaa markii ukunta adiga aa leedahay laga sabro oo loo dhaadhaco ugxaan qof kale uu leeyahay gabadha islaamka ah ama muslimadda ah waxaas waa wax ka reeban ugxaanteeda markayna shaqaynaynin dhaqaatiirtu waxay xaq ugu leedahay inay u sheegaan ay dhahaan ugxaantaada aad ayay daciifo tahay ma shaqaynayso soo gabadhaas laba option ku habboon ama ay u baahan tahay optionka koowaad ama wadada koowaad
waa inay iswaraabido ilaahay ka quusan dadaasho nafaqo raadsato muddo u sabarto jirkeeda kobciso ugxaanteeda cayriinka ah ee yaryar ee jirkeeda ku naqan ee tabar ay ku karto weyday inay tabar u hesho iyo waraab u hesho taas waa wada la yaqaano intii markaas ay u baahan tahay ugxaantaas inay ku kartana ay daba socoto iyadoo u marayso wadadaas duca dabadeed daryeel nafaqo arrinka kaloo gabadha u bannaan muslimadda ee lala soo bursaday arrimaheeda menopauska iyo waxaas lala soo bursaday ugxaan daciifana waa inay iska dayso in waxba isku howleynin ay tiraahdo okay ilaahay baa ii qadaray hadda wixii ka dambeeyana khalaas intaas ha iiga ekaato oo saasay gabadhi ku sabartan way dhici kartaa okay labada optionba gabadha way u bannaan tahay marka wadaday gabadhu raacaysa si iyadaa naga og gabadhu hadday xaas tahay baahida ilmo doon adiga kaligaa ma tihid xaaji macuuna wuu kugula jiraa ku xisaabtama qaas ahaan xaajiga ilmo aanan haysan oo adiga lee kaa sugaayay ilaahay baa laga sugaayay adiga jirkaaga inuu soo sarrifmo sugaayay ku talagal waxaa laga yaabaa inuu raalli ku yahay sida xaal ku yahay hadduu ilaahay idin siiyana uu raalli ku yahay haddaan ilaahay idiin qadarina uu raalli ku yahay iyo xaaji mar walba dhahaayo gabadhan sug ilaa ay tiro konton ka gaarto ilaa raggu ayagu waa anytime u bilaabo kartaa cimrigana ilaahay baa garanaya inta la gaari doono inkastay ragguba hadda ayaamaha ka hadlaan inay dhalaan wiilkiis ama walaalkiis waayo waa saddexda de oo ragga la yiraahdo wiilkiis dhale walaalkiis dhale iyo wadkiis dhale soo ragguba aaday u xiiseen inuu wiilkiis dhalo noqdo oo yaraan ku dhalo oo yaraan ku korsado ilmaha intuu tabar leeyahay haddii kale oday waayeeloo ilmo korkorinahuu noqonayaa marka ragguba way daneeyaan inay hore u dhalaan intay dhali karaan allah baxshee qadarinta iyo jacaylka iyo isfahanka guurkana gabadhu xaqay u leedahay in loo sugo intay weli wax ku laaban yihiin rajadaas mararka qaarkood reeraha qaar waxay iska soo afjartaa markuu dhaqtarku yiraahdo rajo ma jirto gabadhan ugxaanay ku dhashay ma jirto ayagoona garanayn qaab ugxaan loo koriyo inay kala cararaan ama xaajigu uu cararo asigoo dhahay gabadhan waa gabowday ilaahaasaa u qadaray intaa dhaqan kara waa dhaqday alxamdulilaah marka walaalay adoo ka raaliya ifasax waatii hore loo yiri naagtiisa ma dhimato waxaana laga wadaa nin naagtiisa ma dhimato anytime ood adigu arrimahaagu ay hoos u dhacaan baa gabar kale uu la jaan qaadi karaa ilaahay hadduu ilmo ka siine saas oo aabbo ku noqon karaa marka ninka naag walba u dhasho laakiin gabadhu anytime ma dhasho xiliyaha qaarkood ilaahay baa wax bixiye oyna dhali karinaa jirto hadda gabar 60 jir ah waxaa laga yaabaa inayna dhalin because dhiig ma hayso tabar ma hayso ugxaan ma hayso 60 sano iyo wixii ka weynay gaartay soo gabdhaha qaarkood oon aqoonin wadada loo maro ama arrimaha fertility-ga ee dumarka wax uga sheekeeya aanan maqal digniinaheeda helin baaristeeda helin maba u maleeyaanba dumarku inay dhalma dhigaan meeqa kun oo qof ay ugu tiri weligii isma dhihin dumarka way ka joogsataa xataa maxaa ku dhacay caadadeedii waa caadoon jiray maba ogaba gabdhaha qaar inay wax isbedelaan inay caadadu qafiifto inay caadadu joogsato inay caadadu guurto inuu hormoonku isbedelo ma ogo hal maray ku qaraacmaan oo gabdhaha qaarkood qod laga maro iyo wax loo qaato iyo wax loo cuno iyo wax loo cabo iyo wax la joogtaystaba aanan ogeyn iyo waqtiga intuu shaqeynayo ilaahay baa wax garanaa waqtigu markuu yahay tiro 40 hadday gabadhu isbedel dareento 15 sano oo hadda kadib u dhiman xilligii lagu qiyaasay dhaqaatiirta inay dumarku ka tagto waayaha waa 55 sano sax 55 sano markii laga jaro 40 15 sano soo harayso hadday gabadhu la shaqeyn lahayd ugxaanteeda iyo caadadeedana 15 sano waa waqti dheer 10 sano cimriga marka maxaa la yiri muddo dheer sanadana waa idin sheegay 10 sano cimriga waxaa la yiri hal sano ay rabtaa 30 sano markaa jirtid caado qafiif iyo caado wareer haddaad la kulanto 3 sano dhoodhoojina rabtaa 3 sano naftaadu hagar baxdo
ood wax walboo dhowdhowjina aad diyaar ula noqotona si haddii loo fiiriyo waa waqti dheer haddii si loo fiiriyana waa waqti gaaban amarka ilaahay kuma darina hadday gabadhu tiraahdo 3 sano iga tag ma daba socon karee dee waayahay xageed aada marka xageed wax ku wadaa waa iska bixi kartaa mar rabo waa dhihi kartaa cadadaasoo ama ha timaado ama yee imaanin ama xanuun ha hayso ama yee haynin inkastoo xanuunkeeda aanan rabin ciladaha xanuunka caadadana waa ka hadalnaa aakhirka de lama huraan waa coska jilaal bilaash looma dhihin waxaa laga yaabaa inaa markaas soo aqliyeysato aa fahanto ama ay gabadhu fahanto muhiimaday u leedahay hormoonkeeda ugxaameynteeda caafimaadkeeda muhiimaday u leedahay markaas iyadoo raaliya ay soo orodo laakiin hadday 5 sano sii dhunto xilligaas micmicneynaysa ama cagur wareejinaysa 35 sano bay ahayd waxaa soo fadhiisatay oo aqligaagu soo degay adoo 40 sano ah inay wax sii durgaan maahane yaa yaqaan inay wax soo roonaadeen waayo dad cunto Soomaali u dhex fadhiday oo wax isbedel aadan sameynin dabcan cunto Soomaali waxbay baabi'isaa wax ma soo kordhiso waa lagu noolaa karaa waa ceeshkan ku noolaanayna inaan caasi ku noqono maaha laakiin wax badan ma soo kordhiso marka waxa awalba la rabay inaad cuntood cabto waxay ahayd wax soo kordhinayo ayagaa dhaheen aniga ma dhihin hadalkii wax kuu taraayahay marka waa daryeelkii wax kuu taraayahay soo dhawaada welcome amuurta khayr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhammaan xisaabtama markaa idin leeyahay wax kale maaha annaga waxyaabaha inaga reeban saa u fahantaan wax kale ma hadduu ilaahay ku siinaa adoon far u fiiqin ayaa heli lahayd waxaad rabta dhan sooma marka inuu itixaan yimid oo caafimaadka uu itixaaman yahay baa arrimahan soo kordhay oo dhiirigelinta rabo oo daryeelka rabo oo wadwadka rabo xaalkiisa uu yimid haddaanan arrimahan aynan imaan lahayn waa ka kaaftoomi lahayd sooma waxa laga daba ordaa marka waa maxay ama youtube-ka fadhiyo dhiirigelinta dhageyso ama qolalka hoose joogo wixii soo galo daryeelaba doono information laga daba ordaa wixii kuu roon okay inaad si kor isku soo qaado micnaha u fahanto gabar muslimada ugxaan gabar kale ilmo uma noqdaan ilmahaaga ilaahay baa leh waa kuwa ilaahay jirkaada kasoo sarifay kuwa la daba socdo oo in la dhalo oo la koriyo ay wax noo taraan oo annaguna aan barbaarino oon ummadaas islaamka ku soo kordhino taran aan rabno waa kuwa jirkeena la yaalo oo badankeena ilaahay kasoo sarifayo itixaanku marka halkaasuu ka yimid allaha u saqiro oo allaha u fududeeya gabar walboo dareemayso da'da muhiim waaye allahana daystay way soconee 2 jooraba adigu hakamayso ayagaa dhaheen time is not stuck for you waqti adigu taagnaama sanadkii hadda dhashay allahana daystay waa ka gabagabada sii oo meel dhaxaadka sii dhaafay bisha 6aad sanad walba dhaxaad u ah bisha 7aad hadda ku jirnaa waqtigu soconaya in laga faa'iideysto waa muhiim see waqtiga looga faa'iideysto waxaan raadinayno waa balance okay balance caada hadday imaan weyso waxay lumisay balancigi hormoonka lumisay ugxaan hadday daciif tahay balancigi ugxaan sidaha halaabay ama PCOS ha tabto ama burooyinka raximka ha tabto ama sis ha tabto wuxuu tabanayaba balance yaa lumay balancega si lagu sixi karaa waqti iyo duca dabadeed daryeel loo cuno oo fiican daryeelkii halna maaha labana maaha boqolna maaha labana maaha kumanaan waa waad ogtiin intiina ardada ah ilaahay baa wax oge marka cashir walba waa baro kadibna isku dabiib waa wax kaloo meesha yaala male waxa laga daba ordaayo oo la raadinayo waa wax wada wanaagsan oo caafimaadka u wanaagsan dhakhtarka markaa balansanayso akhbaartaada aad leedahay dhiigayga qaad iskaaniga qaad waxaad daba ordaysaa oo raadinaysaa meesha kuu marayaan wax okay kabacdi aad daryeel la doontaa soma waa ka haddii markaas ay soo baxdo in daryeel loo baahan yahay soo dhawaada micno kasta inaa fahantiin waa jeclahay ama ardada noqda ama si guud iigu xirnaada ama si gaar iigu xirnaada inaa micnaha fahantiin waa rabaa okay micnaha hadda aan isfahansiinayno wuxuu yahay egg donation okay egg donation waa ugxaan gabar kale laga keenay oo lagugu sadaqaystay ilmo ma noqoto
caado amaa lagu sii karaa oo caado gabar kale amaa lagu soo qaadi karaa ugxaantana seemo inkastoo ugxaanta loo mara taatika loo maro oo wax lasoo qaadi kara ay tahay runtiina dad badanaa saas ilmo ku dhalay ilmahoodii maaha no may haddaba aqligaaga ma yeelayo soo maa haddii xataa xalaal ku dhalanayaan afkaa dhuudhuubnaa inuu ninkaaga gabar kale ilmo ka dhalo ku qabata iyo qadar alla waa la qaataa unbaa lagu liqaa arrimahaas oo kale laakiin wax maskaxda galaya ma aha culimmadana waa soo weydiin kartiin wax inoo okeeya maaha wax inoo xalaala maaha cunug lasoo dhalay dhabta haddii lagu saaro waa kori kartaa ajirka iyo xasanaadka aad ka helaysidna ilaahay unbaa kuu qiyaasayo taas okey waa diiniyan xataa okey waa ajir badanaa ku jiro allaha u kaso inay si wacan oo wanaagsan u barbaariyaan qofkuu alla bado inuu ilmo barbaariyo daqiiqad waxaa u qabataa ilaahay ma moogo laakiin ukun gabar ee u shaqaynaysa laga soo dhuftay naf ka dhex raadi ee canug bacrimi jirkaaga ee ukunta saas ku dhal waa dadka intixaamaadka u fariisto laakiin qof kale warqadda iyo xariiqdho luqluq marow waa arrinkaas diiniyana wax fiican maaha marka ubixii la waraabiyaa nuuro niyada dejista micnihiina fahma dadka qaarkood ugxaantooda inay koriyaan waxbaba kuma ahaba time lay ku qaadataa laakiin waa inuu qofku isku kalsoon yahay ilaahayna aaminsan yahay naftiisana aaminsan yahay adduunna ka quusan ilaahayna ka quusan naftiisana ka quusan aniga shaqsi ahaanteeda waan arkay dad badan oo inta la tacaalay jirkooda ilaahay ugxaantoodii laga soo dayriyey u barbaariyey ka bacdina maanta ugxaantooda ilaahay taran ku siiyey laakiin dad dadaalay ay ahayd ilaahayna la garab galay qof walba waa la jeclaan lahay saasoo kale laakiin intuu qofku dadaal ogol yahay anigu ma ogi waxaa jira dad xanuunaad lagu sheegay jirkooda iska simbalahoo gadaal looga noqon karo hadday daayadkooda bedelaan laakiin ay ku adag tahay inay isbedelaan taas way xanuunka ula nool yihiin ay bukaan socdo yihiin naftaada markay waxay u baahan tahay aad ka cag wareejisan runtii waa ayaan daro waana amar dadka iska qabsado maxay ku dhacday ma naqaano inuu qofku naftiisa ka cag wareejiyo ama waxba u quurin ama information u raadin ama nafaqo u raadin ama continuously ama joogto uunan daryeel naftiisa u raadinin waxay ku dhacday horta aniga ma aqaan laakiin way dhacdaa okay dadka qaar waa la dhihi karaa ummadda ma dhexgalaan ummadda ma aaminaan ummadda inay wax ku darsadaan ma ongolo maxaadiro macaan haddaa u keentid oo tiraahdo nuso saacaan ku qalbinaso maxaadiradan waa ka cararaan mar un baan dhegaysanaya leeyihiin degdegtaas maanta adduunka waa la wada arkay okay degdegtaas maanta adduunka waa la wada arkay oo dadka qaar wixii u dana xataa ayna dhegaysan karin ee ka cararayaan okay isla tacaalka dadka qaarkood way ku adag tahay sababtoo ah waxay hagaajinayaan cayil waxay hagaajinayaan infection waxay hagaajinayaan tabar darro waxay hagaajinayaan nafaqa darro waxay hagaajinayaan dabeecad xumo wax badanoo isku tagayay la fadhiyaan meel mana awoodi karaan in ay dhuudhuujiyaan danahaasoo dhan okay midda kale waxyaabaha qaar maba ogolo dadku inay ka tanasulaan sida xagga dabeecadda oo kale dejinta qalbiga ama moralka oo kale daayadka waa aragteen cunnada way kugu dhagaysaa cunto soomaali waxaa kugu dhagaayo dhadhanka cuntadaada inaad ka tagtid ma rabtid jadwalka hurdada cid qasab kugula ma leh waad aragteen waa iska dhafraynaa ilaa qof weynaa tahay noloshaadana ilaaha weyna waaxid cid ku maareydo oo qasab kugula ma jirto da'dii waa socotaa waxaa laga yaabaa inaad soo qalbi baraarugto ood hami ubad inaad dhasho ay kugu dhalato iyadoo da'du 40 sano dhaafta ilaahay wax bixiye dadaal waa kugu cuslaanaysaa dhaqan ahaanna waxaad leedahay hadda kadib waa too late wixiina waa rabtaa oo intaad iskaga aamusay muudka kama gelin oo iskagama aamusin marka waxna waa rabtaa waxna ma ogolid lafta jecli ludda jecli okay arrinka kale waxaa la yiri qofba koo boqolay kuu taliday maanta dad badan waxaa jirta talo lagu darsaday oo la leeyahay hadda ka bacdida maxaa hagaagaya hadda ka bacdida maxaad haysaa hadda dadka markaad taladooda qaadatid aan kuu ifinaynin ama kugu dhiirigelinaynin taada waxay ahayd talawaatii ilaahay in aad saboodo adiga iyo sidaa wax u rabto laakiin haddaad dadka maqasho laga yaabo in lagu yiraahdo waa too late koodina kuma qanacsanid oo iskaga tanasul markii lagu yiraahdana ma qanacsanid
doonistina waa kuwan dadka ay ku daba taagan yihiin marka ilaahay baa bixiyo ilmo caafimaad qabo oo baariin oo saalixiin qof walba allaha sii cimri dheer oo caafimaad iyo cibaado leh risaq waasac loo ilmahaas ku barbaarsadana allaha siiyo waa ilmo dhal adduunka uga tag xoogaa waa laga fiican yahay laakiin naftana ilaahay baa qadaro goorkay baxayso marka ilaahay in la weydiisto leh waa cimri dheer oo ilmahaas la dhalay xilli dambe lagu koriyo haye maxaa soo haray xilashada loo xilanayo qof walbe adduunka maanta waxaa laga sheegaa wax badan oo information ah because maanta internetka suurta geliyo ilaahay ka sakow in arrin badan oo information la share gareeyo waxaa laga yaabaa in meelo kaa fogfog kheyr lagu sheego inta qof oo tiraahdo ma malayn kartid gabar aad u daaweyn oo hadda aad isleedahay waxbaba kuma harin oo inta dhooftay waddan kala tagtay ilmo soo dhashay because of treatmentigii IVF-kii facility-ga ee la xiriirtay ama qaybtay la xiriirtay ilaahay baa wax og ilaahay ayaa wax og walaashaa kula dhalata hadday tahayna ukun kuma siin karto ukunteedana ma aha ukuntaadii waana walaashaa saaxiibadaa kuma siin karto ukun laysma siiyo ukunta waa ilmahaagii ilmahaagana ilaahay ka sakow bini aadan kuma siin karo culamadana soo wareysta waxaan arkaa gabdho dhahay xataa ninkayga naagta uu qabo ukunteeda ma isii kartaa ilaa gabadhaas nikaaxiisii ku jirtaaye no gabadhaas cunugay dhashay ama ay ka dhimatay ama la furay iyadii ama iyadoo noolba ay kuu ogolaatay inaad u koridaan labadiina as a family anigu waa ila okay laakiin cunuga iyada riximkeeda ku qaade ukunteedii aan riximkeyga ku qaadaa aqli maaha waxaa aqli ah haddaad ogoshahay daayadkaaga bedel mashiinka orodka soo gado u raadidayaa jimicsi u raadidayaa daryeel nafaqo u raadidayaa cilaaj quraan dabcan waxaa macquul ah adiga caafimaadkaaga la tacaal u orod inta ilaahay ku kaso naftaada wax u qabso waayo ma naqaano wax annaga inoo roon waxaa daawo ku jirto waxay dantu la taalo amuur hagaagaysa ma naqaano ilaahay baa wax og marka ani gabar walba waxaan kula tali lahaa caafimaadkaaga talawaatii ilaahaye u dadaal oo waxba hadaba dhigan laakiin ukun gabar kale ha ka sugin rajo taas maya waa wax naga reeban laakiin adduunyaha lagama waayo marmarsiya sooma how lagama waayo okay taas ukun gabar kale halkaasaa kaga hareynaa amuurta kheyr allah ka dhigo allah nooga dhiga dhammaan gabar walba waxaan kula tali lahaa talawaatii ilaahay ukuntaada committed una duceyso hormoonkaaga iyo caafimaadkaaga una sabar dantaada u sabar intay gaari doonto ma naqaaniyaas hubaal dhaqsi aan jecelnahay inay wax noo hagaagaan laakiin ilaahay baa wax hagaajiyaha ilaahay ula taga oo ilaahay weydiista haddii la yiraahdo ka aqbaar hadal gabdhaha inta daalay iska safray iska fariistay aakhirkina wax u shaqeeyaan halna maaha labana maaha lamana soo koobi karo marka way fiicnaan lahayd qof walba asigoona sabrin oon rajo beelin inay wax u shaqeeyaan way fiicnaan lahayd marka waxaan ku horeynin iyo howl layskuma darsado in la xisaabtamo oo da' lagu xisaabtamo oo dan lagu xisaabtamo oo daqli lagu xisaabtamo oo leeballa hormoonaad lagu xisaabtamo ilaa wixii aad fahanto lee xalli kartaa mogta maanta haddaad fahanto kiilooga korkaaga saaran inta kugu siyaada ah waa la dagaalami kartaa cayilkaas ilaa aad ka guul gaarto oo levelkii lagaa rabay aad noqoto insha allah haddii aad fahanto arrinkaaga wuxuu u xaniban yahay waa hormoonka iyo leveladiisa waa la tacaali kartaa inta leveladaas iska saxaan oo ilaahay idankiisa aa guusheeda gaartid ma la sixi karaa dabcan haa haddii aadan lifestylekaaga bedelin oodan nafaqadaa qaadata bedelin oodan wax isku soo kordhin oo wixii ku baday inuu hormoonka kaa qaldamo aadan joojin lama sixi karo okay
laakiin haddaad joojiso wixii kaa qalday ilaa waa taqaanaa cuntadaad cuni jirtay qaabka u nooleed qofaan qaabka u nool yahay aanan fahansanayna waa yar tahay marka haddaa qaabka u nooshahay fahantid waxna aa ka bedeshid wax kheyr lana allaha noo sahlay aad isku soo kordhisid then isbedelka markaasoo kuu bilaabanaa insha allah ilaahayna talada loo daayo okay mar koobaad iyo mar labaad waxaa maya ukunaan ukuntaada ahayn ma lagula taliyaa dadka qaar ukunaan ukuntooda ahayn in ay ilmo ku raadiyaan dabcan haa waa lagula taliyaa adduunka way ka jirtaa maanta dadka aanan islaamka ahayn inay isticmaalaan ayagoo hadda wax saasoo bigdhiilaba u arkaynin because diiniyan anigu ma aqaan waxay diimahooda ka tiri laakiin culture ahaan iyo dadkan maanta modernka ah ee wadamada casriga ku nool cararayaal aanan ninka uunan lahayn inuu ilmo ku helo ee gabadhiisa ku dhashay ilmo ama sawjadiisa oo hadhowna ilmihii aaba dhaho uunan dhehayni ilmahan aniga ma dhalin iyo shahwaadkaygii maaha asoona dhehaynin inuu ilmihii aabaysto oo aabbo u arko ilmihii waata gabadhuna sidoo kale ukun aanan ukunteeda ahayn inay ilmo ku dhasho oo hadhowna tiraahdo ilmahan anaa dhalay dabcan markaad aragto iyadii oo xaamil oo calool weyn oo halkaas soo fadhido waa leedahay ilmaha iyadaa dhashay laakiin exactly meeshay ka keentay ukunta ma garan kartid farsamay ku dhashay ukunteedii caadigeeda shaqayn weysay ukumo gabar kale laga soo qaaday ku dhashay laga yaabay inay 3 ciyaal 4 ciyaal 5 ciyaal ku dhasho 2 ciyaal hal baby wixii markaas iyadu ay rabto ilaahayna u qadaro inay dhasho iyada iyo ilmahaasi u taalaa inay mustaqbalka u sheegayso hooyo ukunteedii maadan ahayn laakiin uurkaanba kugu qaaday waa aniga ku dhalay waa aniga laygu kaaqalay waa aniga caadi ku dhalay waa aniga ku korsaday laakiin adiga ukunteedii caadigeed oo aniga aan lahaa hooyo may shaqaynin ukuntan soo qaatay ahayd laakiin aniga ku dhalay okay ilmahaas iyada ma laha laakiin waa uu naftay ku qancday sooma nafteeday ku qancday laakiin DNA hadii la baaro DNA-ga waxa iskale gabadhi kale maxaa gabadha muslimada loogu diiday dabcan diiniyan iyo wuxuuna ilaahay raali uga ahayn ilaahay wuxuu ku siiyaad leedahay waxa soo qaadatay adigu malihid dambigeedan ilaaha kugu xisaabtamaayo soo xaq rabbi in laga baqo waaye waxa adiga leedahay waxa ilaahay ka soo sarifay wixii adiga aad amaano gelido ama aad koriimadooda ka kafaala qaado ama cid kale ha korido oo dhaqaalahooda bixi ama adiga dhaqaale iyo xoogba iskugu dar oo ajirkeeda xambaarso taasna waa halkeeda oo ajirka ku jira waa wada ognahay ilaahay baa wax oge culimadana weydiiye ilmo aad barbaariday diin bartay ilaa heer darajo adduunyo aa gaarsiisay adiga ma dhalin laakiin waad koriday booska hooyaa uma tashay ama booska aabuu qofka uma tala mas-uulka ka qaada ilmaha okay taasu waa okay laakiin canug adiga aad dhasho oo ilaahay jirkaada ka soo sarifa haddaa rabtid waa canugaaga committed oo hadduu ilaahay kuu qadaro markaad adiga dhasho ilmahaaga adigana waad leedahay marka cidna kuma qabsan karto cunugan waa cunug ilaahay kaa soo sarifay sarifkiyaa marka daba soconaa wadada loo maro duca dabadeed waa un waxa la joojinayo iyo waxa laysku soo kordhinayo iyo waxa loo sameynayo oo hadda ciidan ka badatay in tartiib loo fahmo hadduu ilaahay siinayo qofka islaama ilaahay markuu wax ku siinayo baadii adoo joogo oon baadba haysan oo gaajo u go-aayo marna cunaa marna cunaynin baa laga yaabaa ilaahay inuu mataana kaa soo sarifo baled adoo joogo oo marna cunaynin marna cunaayo ilaahay inuu kaa soo sarifo adigoo ilaahay iskugu kaashubay oo wax allaala wixii maanta adduunka la doono heli karo inaad dhali kartid iyo inaadan dhali karin wax walba way dhacdaa marka ilmo la dhalo ilaahay baa bixiyee wadada loo maro waa taas in ilaahay la weydiisto ilaahayna la baryo marka aniga ma qabo ukunaan ukuntaada ahayn wax ku raadi inta reer dabiibow kheyr allah siiya naftiina kumitida si guud iyo si gaar si aad saaxiib ila tihiinba soo dhawaada welcome wadada loo maro way badan tahay waxyaabaha qaarkood laga yaabay inaadan rabinina inaad joojidaan inaad isku soo kordhidaan laakiin iska dhagaysta insha allahu kheyr markay noqoto diidmada dhakhtarka uu diidayo uu leeyahay sorry waxba lagama qaban karo maaha inuu asiga wuxuu kuu haayay uu kuu diiday jirkaagaan lala shaqayn karin levelka uu gaaray haddaad adigu u dadaalayso dabcan
waa cidu kaama xigta naftaadii go home gurigaaga adduunya u noqo xisaabtan fariiso ila gara sheekada raadsa xal ilaahay baa xal haaye haddaad guusha gaartana de cidu kaama hortaagno because ilaahay wax ku siinaa ibni aadan lagaala tashamaayo marka good luck waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo saasna ku qalbi qanca ukuntana meesha kasoo bilaabato waa taqaaniinaa maleyna waa caado hormoonkeedu saxan yahay ugxaan fiican oo waxtar la korido ugxaantii aad ugxaameydo ilaahayna kaaga gunto caafimaadka hooyadana ay sii fiican yahay si 9 bilood ilmo caafimaad leh aad uurka ugu sidaan markaa dhashaana ilmo caafimaad qabo hooyo caafimaad qabto iyo waalid wada caafimaad qabo farxad kusoo dhaweysta awlaadiyada ilaahay idinkaga dhigo aamiin waa inoo inta kale insha allah soo dhawaada welcome dhiirigelin wanaagsan meesha waa meel dhiirigelin fadlan xisaabtama duceysta danahiinana haddaa u kacdaan ilaahay baa wax leh allaha idinla garab galo aamiin yaa rabbi ani inaa idin dhiirigeliyo unbaan mar walba idinkugu soo geliyaa barnaamijka dhiirigelinta markaa ku nasataane adiga xisaabtan waqtigaaga waa qaali ka faa'iideysa insha allah